السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka la yaabka TV qodobada warkeena ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Mareykanka oo tilaabooyin adag oo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya ee Jubbaland iyo kuwa maamul goboleedyada kalaba xilligan ka bilaabay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho xukuumadda Soomaaliya oo fariin adag u dirtay Muuse Biixi Cabdi maxaa ka jira in sanadkan madaxweyne Muuse Biixi uu diiday in uu soo xajiyo wararkii ugu dambeeyay halkan ayaad ka daawan doontaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Mareykan ayaa weerar culus waxa ay kula wareegeen magaalada muhiimka ah ee Awdigle ee gobolka Shabeellaha Hoose faahfaahinta la xiriirta dagaalkaas iyo sida uu dhacay khasaaraha soo gaaray Mareykanka iyo shabaabkana halkan ayaad ka daawan doontaan dawladda federaalku waxa ay bilowday sidii ay uga adkaan lahayd qorshaha looga soo horjeedo ee ka socda magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug ciidamada amniga amar adag ayaa la siiyay wararka la xiriira shirka Habargidir iyo halka uu marayana waa daawan doontaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya waxa la siiyay qalab ay kaga hortagayaan shakhsiyaadka dawladda federaalka la shaqeeya ee shabaabkana dhinaca kala shaqeeya wararka dibadda ee aanu idinkugu hayno warkeena waxa qayb ka noqonaya kolayo culus oo ka tirsan ciidamada xoogga ee dalka Turkiga oo u jahaystay waqooyiga wadanka Syria iyo Mareykanka oo cunaqabatayn dheeraad ku soo rogay saraakiil sarsare oo ka tirsan wadanka Venezuela inta daawadayaal waa qodobada ugu waaweyn wararkeena ku soo dhawaada wararkaas oo faahfaahsan David Haley ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa magaalada Muqdisho waxa uu yimid si uu qiimeyn ugu sameeyo wararka la xiriira wax isdaawarinta ka jirta doorashooyinka 2020 ee Soomaaliya iyo sidoo kale gacan bidixaynta dawladdu ay ku hayso doorashooyinka maamul goboleedyada waxa la kulmay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa iska xog wareysteen sida dawladdu ay wax u wajahayso iyo rabitaanka Mareykanka ee ku wajahan arrimaha doorashooyinka maamul goboleedyada wararku waxa ay tilmaamayaan in Mareykanku uu aad u danaynayo in dawladda federaalku ay gacanta kala baxdo doorashooyinka maamul goboleedyada dalka ka jira isla markaana ay maamul goboleedyadu u madax bannaanadaan habka ay wax u dooranayaan waxa Mareykanku uu ka digayaa in faragelin lagu sameeyo doorashada Jubbaland isla markaana dhiig uu ku daato magaalada Nabdoon ee Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ee madaxweyne Sayid Axmed Madoobe oo xilligan gacanta ku hayo inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan in danjiraha Mareykanka ee arrimaha Soomaaliya Donald Yamamoto uu aad u danaynayo in dawladda federaalku gacan adag ay ku qabato hogaamiyaasha maamul goboleedyada isla markaana uu taageersan yahay qorshaha farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre labada dhinac sidoo kale waxay isla soo hadal qaadeen waxa kalifay in madaxweyne farmaajo uu iska celiyo isla markaana uu iska naco dhalashada uu ka haystay dalka Mareykanka ayaa aad u danaynaya in la cadeeyo sababta keentay arintaas inkastoo uu jiro sharci guud oo Mareykanku horay uga dejiyay muwaadiniinta wadankiisa u dhashay ee dalalka kale xilalka sare ka haya waxa laga yaabaa arintan in ay keento cawaaqib adag oo soo wajaha dawladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo isla markaana xagga Mareykanka kaga yimaada isla wararka dawladda federaalka ayaanu ku guda jirnaa daawadayaal waxay dawladdu qaadaysaa tilaabooyin ay doonayso in ay dhexda ka jabiso shirka ka socda magaalada Hoobiye amar uu bixiyay taliska uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu dhigayay in dhammaan ciidamada amnigu ay baneeyaan magaaladaas isla markaana aynan sugin shirka amnigiisa iyo madaxda xildhibaanada iyo senatarada isku jira ee halka ku sugan ciidamada ayaa goor dambaba waxa ay baneeyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen magaaladaasi Maleeshiya hubaysan ayaana la wareegtay gacan ku haynta magaalada Hoobiye ee gobolka Mudug boqorka dalka Sacuudiga waxa uu waraaq uu ku casuumay xajka oo u soo diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi balse madaxweyne Muuse ayaa jawaab adag siiyay boqorka isla markaana iska diiday in sanadkan uu xajiyo
acmaasha xajka inuu soo guto sanadkan madaxweyne muuse biixi cabdi ayuu ku xiray in la aqoonsado lana taageero qadiyadda gooni isku taagga ee Somaliland isla markaana calanka Somaliland la suro dhammaan goobaha martida lagu soo dhaweeyo ee dalka Sacuudi Carabiya madaxweyne muuse ayaa boqorka u sheegay in asagoo aan ixtiraafin Somaliland in uunan xajka tagi doonin arintan ayaa la yaab ku noqotay qaybaha bulshada ee ku sugan deegaanada Somaliland wargeyska geeska Afrika ayaana baaris uu sameeyay waxa uu ku tilmaamay in madaxweyne muuse biixi wali uunan jawaab ta uu doonayo uunan ka helin boqorka dalka Sacuudiga la sugaabe ugu dambeyntiina ciidamada sida gaarka u tababaran ee xoogga Soomaaliya ee kumaandooska danab iyo sidoo kale saaxiibadooda Mareykanka ayaa weerar culus waxa ay kula wareegeen magaalada istiraatiijiga ah ee Awdigle gobolka Shabeellaha Hoose ciidamo cadaan ah iyo sidoo kale kuwa xoogga Soomaaliya ee loo tababaray howlgallada qorsheysan ayaa maantay waxa ay dhexda ka galeen shabaabkii ku sugnaa magaalada Awdigle ayaga oo guud ahaanba ku kala daray hawdka shabaabkii muddo dheer maamulayay halka isla markaana xarumaha iyo saldhigyada culus ku lahaa dadka deegaanka ayaa arkay calanka jamhuuriyadda oo la suray dhammaan goobaha kala duwan ee magaalada Awdigle ugu dambeyntiina dawladda federaalka ayaa wararku waxay tilmaamayaan in ay heshay qalab u fududeynaya in ay ka adkaato kuwa dawladda ka tirsan ee shabaabka gacan siiya ila hoose ayaa waxay tilmaamayaan in filla Soomaaliya ay hirgelinayso qalab sirdoonku ay adeegsan doonaan loogana hortagi doono shakhsiyaadka dawladda ka tirsan ee shabaabka la shaqeeya wararka qaar waxay tilmaamayaan in qalabkani uu diiradda saari doono dhinaca telefoonada iyo dhaqdhaqaaqa kooxaha laga shakiyo halka wararkaas daawadayaal idinkaga imanayaan waa la yaabka TV iminkana wararka xagga dibadda kolayo culus oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Turkiga ayaa u jahaystay deegaanada waqooyi ee dalka Syria waxay ciidamadani doonayaan in guluf adag ay ku qaadaan kooxda YPG ee ka dagaalanta waqooyiga wadanka Syria oo Turkigu uu ictiraafsan yahay in ay yihiin Maleeshiya argagixisa kana go'day ururka muddada dheer ee 35 sano ka badan oo la dagaalamaya Turkigu ee PKK ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa cunaqabatayn cusub waxa uu ku soo rogay saraakiisha sarsare ee dalka Venezuela warar la helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in taliska madaxweyne Nicolas Maduro markale ay wajahayaan tilaabooyin adag oo Ameerikaanku uu ku soo rogay isla markaana la doonayo in lagu wiiqo awoodooda ay wadankaasi muddo ku maamulayaan warkii oo idinkaga imaanaya la yaabka TV oo intaas daawadayaal nabadgelyo